wada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka soo dhoofay magaalada Garowe kuna soo jeeda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maxay ka wada hadleen madaxweynaha Puntland Siciid Dani madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Somaliland oo shir uga socda magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya ciidamo badan oo Jubbaland tababar u soo xidhay magaalada Dobley oo la sheegay inay ku biiri doonaan ciidamada uu hogaamiyo wasiirka amniga Jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada Balaxawo maxaa ka jira in gudoomiye Mursal uu qorsheynayo inuu mooshin ka keeno madaxweynaha Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa magaalada Garowe ka soo sagootiyay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani isagoo oo jirjiraad ku qabtay magaalada garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani inuu ku faraxsan yahay booqashada uu ku yimid dawlad goboleedka Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo uga mahad celiyay muddadii uu ku sugnaa waxa uu sheegay Siciid Cabdilaahi Dani inuu danaynayo in Soomaaliya cagaheeda dib isku taagto lagana heshiiyo siyaasadda iyo madmadowga waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland in wax kasta oo jira wada hadal lagu dhameeyo isagoo waliba aan shaaca ka qaadin waxyaalihii sida gaarka uga wada hadleen laakiin kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu isna sheegay inuu uga mahad celinayo soo dhaweyntii ballaarnayd ee uu sameeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo oo sheegay in uu ku mahadsan yahay madaxweynaha Puntland sida sharafta leh ee uu soo dhaweeyeen waxa wararku qaar sheegayaan in ay wada hadaladii ay isku fahmi waayeen oo kulamo dambe dib loogu dhigay isagoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hore ugu baaqay in uu soo magacaabo labadii xubnood ee doorashada Puntland u matali lahaa waxa wararku ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulamo dambe dib u yeelan doono oo beesha caalamka ay goobjoog ka tahay madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay Garowe ku sugnaa iyaga oo ka wada hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble la in uu ugu dambeyn ka soo dhoofay iyadoo wax natiijo dhaba ama wax isfahana aan laga gaarin waxyaabii halkaas u tagay waxaana la sheegayaa in hadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku soo wajahan yahay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweyne Qoorqoor oo la sheegayo in isagu horeyba uu magacaabay laakiin la sheegayo inuu iska soo mari doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wax ajenda oo rasmi ah uusan kala hayn maadaama madaxweynaha Galmudug Qoorqoor uu horey u gudbiyay xubnihii halkaas oo tababar looga furayay magaalada Muqdisho madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii shalay ahayd axad soo gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya ayaa la soo sheegayaa inuu kulamo dhowr la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto iyadoo oo la sheegayo in ay ka wada hadleen arrimo xidhiidh ganacsi iyo waliba qorshe cusub oo ay Kenya ka hirgelin doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kaasoo ugu horeeyo baa la sheegayaa in si toos ah diyaaradaha dalkaasi Kenya ay u tagi doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland halkaasoo isbuuc kasta ay geyn doonto baa leeyahay qaadka Miro ee suuqa ay waraadinayso Somaliland dowladda dalkaasi Kenya waxaan warkan uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhawaan ka gudbisay in ay dacwad u gudbisay urgaadka IGAD kaasoo ay sheegtay in dowladda Soomaaliya waa dowladda dalkaasi Kenya ay faragelin ku hayso qarannimada wadanka Soomaaliya dowladda goboleedka Jubbaland ayaa waxaa la soo sheegayaa in ciidamadii ugu fara badnaa ay tababar ugu soo xireen magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose 150 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay tababar ugu soo xireen magaalada Dobley halkaasoo loo diyaariyay in ay ku biraan ciidamada uu hogaamiyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan halkaasoo kuwaasoo ku sugan magaalada
magaalada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gado halkaas oo la soo sheegayo inay ku biiri doonaan ciidamadaasi. waxaa la soo sheegay in ciidamadan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan in tababar halkaas lagu soo xiray maalmaha soo socdana ay gaari doonaan magaalada Ceelwaaq iyo magaalada balad xaawo duleedkeeda halkaas oo ay ku soo yihiin ciidamada uu hogaamiyo Cabdirasiid Janan oo dawladda Soomaaliya hore ay ugu eedeysay in uu dambiye ka galay gobolkaasi Gado. waxaa la soo sheegayaa in hadda wasiirka amniga Jubbaland Cabdirasiid Janan uu ku sugan yahay waa xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya kala qaybiya. maxaa ka jira in gudoomiye Mursal uu qorsheynayo inuu mooshin ka bilaabo baarlamaanka Soomaaliya? warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan la soo sheegayo in uu wado mooshin ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas oo la soo sheegayo in baarlamaanka uu shirar kula jiro gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal. waxaa la soo sheegayaa isaga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane muuday in halkaas ay shir kula leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya taasoo la sheegayo in qorshe ay u degayaan kaasoo ah in baarlamaanka Soomaaliya xilka uu ka dhamaanayo 27 bishan ay ku jirnaa December halkaasoo la soo sheegayo in ay ajanda cusub bilaabi doonaan maadaama shalay gudoomiye Mursal uu shaaca ka qaaday in baarlamaanka Soomaaliya ay sii jiri doonaan taas oo dadka Soomaaliyeed ay si faladuwan uga falceliyeen. waxaana wararku qaar ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay uu xidhiidh dhow la lahaa mucaaradka ku shiraya hotel Jasiira kuwaas oo la soo sheegayo in uu ra'iisul hore ee Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray uu xidhiidh dhow la leeyahay oo la soo sheegayo in baarlamaanka Soomaaliya ay wadaan mooshin xilka qaadis oo ay madaxweynaha Soomaaliya xilka uga qaadayaan laakiin wararkaas iyo wixii ka dambeeya waan ku maqaltaan barnaamijkeenada dambe ee soo socda. wararku ayaa waxaa xusid mudan in baarlamaanka Soomaaliya uu dhamaanayo 27 bishan taasoo la soo sheegayo in dastuurka Soomaaliya ee hadda qoran la soo sheegayo in uu la dhacayo ama uu la dhamaanayo baarlamaanka Soomaaliya ee hadda ay baarlamaanka Soomaaliya la rajeynayo in hadda bishan 22keeda uu ku egyahay muddo xileedkooda. guud ahaan warkii caalamka aad kala socotaan janaalkan ku leenahay Abshir Joker ee YouTube-ka qaybta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee wanaga intaas nabadgeliyo.